Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaasheena quruxda badan ee ku xiran Dheemasho asxaabta hore noola joogta aad baad u mahadsantihiin. Muuqaalka halay gareeya commentigana adiga iskale waxaa doonta ku qor sida title-ka kasoo aragtaba waxaan doonaa inaan ka hadlo arrinta gabadha youtuberada Amiiro Qurux oo run ahaantii aad ii xanuujiyay markii aan daawaday. Waa gabar Soomaaliyeed, waa gabar hooyo Soomaaliyeed ah, waa gabar maaragtay la dhibaateeyay run ahaantii sidii aan ogayn. Qofka qalbi uu leeyahay mar hadduu qalbigu ka jabana waa sida uga jabayo inuu soo kabsadaa way adag tahay. Amiiro qalbiga laga jabiyay waxaa jira shay la yiraahdo kalsooni oo dadku ay wadaagaan bini'aadanka dhan uu ku dhisan yahay. Shaygaas sida loo dhisaa way adag tahay laakiin sida loo burburiyaa way fududahay. Qofka ku kalsooni qabtay ee marwadiisa ahayd ee aad ku faanaysay oo dad aad ka soo xulatay ilmahaada aabahood ahaa marka oo ku dhibaateeyo qalbigaada xanuun aad u weyn aad ka dareemaysaa. Anagoo qosida aysan ugu dhicin oo daawadayaal bis aan ahayn aan qalbiguna xanuuna ilana aan xisho weynay. Amiiro waan ka xumahay waxa ku dhacay run ahaantiina markii si loo fiiriyo social media sanadkan gabdhaha Soomaaliyeed wuxuu noqday meesha loogu ooyayo. Waxaan horey ula socday qisada gabadha la yiraahdo Afnaan Aadan oo ah run ahaantii qiso aad u xanuun badan. Waxyaabo hore u dhacdhacay markii laga soo gudbo asbuucan labadaas qiso oo iskaashaday waa la yaabay. Iyo gabadhan Amiiro oo soo bandhigtay fariimo. Dabcan intaysa fariimaha soo bandhigay ka hor waxaa ka horreeyay inay soo ayada codadkeeda la wareejinayay. Ayadoo dhahaysa cunugaaga biilo koleeto wax ceeb maysan ahayn cunugaaga biilo inay tiraahdo hadii cunug ahaa cunug labadoodu ay dhaleen oo aabihiis xaq uu ku leeyahay. Laakiin qoraalada ay isdhaafsadeen labadooda ayaa kuleelka ka keenay Amiiro in codkaan ay duubto ay bulshada wareejinayeen. Si marka loo fiirsho way qaldan tahay labada fariimoodba labada dhinacba. Sababtu waxay tahay awlaad markay meesha taalo awlaadii markay waaweynaadaan bari social media markay soo galaan dhibaato badan ayaa uga imaan karta. Taasi oo ah cunugii markuu social media soo galo YouTube oo maaga wax ka dooro hooyadii aabihii oo is haysta markii la arko oo aabihii leeyahay cunugaaga waxa la tahay hooyadiina ay ka daba hadlayso cunugaas xoogay baraha bulshada waxaa moodaa inuu soo ugu dhex jiray adag tahay. Balse dhalinyarada Soomaaliyeed ee social media ku wada jira markay isguursadaan dhibaato ay soo kala dhex gasho qofba qofkii kale sida inuusan ku soo noqonaynin oo kale intuusan waxba dhex oolin oo kale ayay iskula doodaan. Fahmaysaan? Tusaale ahaan labada qof haddii ilmo dhex oolinayso ilmo aysan dhex oolinayso ilmo isku dhaleen waxay rabaan dee ha is dhahaan bari wax ka arkaya ma lahan. Laakiin cunugaaga mustaqbalkiisa inaad u fikirtaa waa muhiim oo aan la arag bari ka maalin hooyada ama hasaan isku haysteen maxaad anaga noogu faanaysaa aan la dhihin isu cunugu aysa dhibaateen. Amiiro koleeto waqti badan ay qarsanaysa dhibaatadan balse karkarka waxaa la yiraahdaa digsiga kuleelka karkarka ka keena ma Soomaalidu ku maamaadaan. Marka koleeto sanadkan wuxuu noqday sanadkii gabdhaha Soomaaliyeed laga ooyinayo dhibaato walba haysteen. Balse Amiiro waxaan leeyahay qalbiga adkayso hooyo Soomaaliyeed aad tahay gabar Soomaaliyeed aad tahay wax ku dhibaya ma jiraan dulqaadka iyo adkaysiga intaad dhib soo martay waad soo martay dee cunugaaga maanta aad haysatid alxamdulillaah rabbil caalamiin dheh oo kuwa caafimaad qabo. Marka waa mahadsantihiin kolba sanadkan wuxuu noqday sanadkii gabdhaha Soomaaliyeed laga ooyinayay 2022 waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sanadkii gabdhaha u fiicnaa. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal muuqaalka like saara commentigana adiga iskale waxaa doonta ku soo qor asxaabtaada oo si share garaysan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.